dadkii khadaamiinta ahaa ee hunnada ahaa ee gabiile iyo arabsiyo iyo ka yimid baa maanta maatadiinni ku laynaya laascaanood waa nasiib darro ina haysata dadkaasi markaynu daraawiishta ahayno aynu 20 sannood ingiriiska la dagaalamayno iyagu ingiriiska waxay ahaayeen xamaaliin gaal kasta oo ingiriisa oo soo xagaabaxa berbera oo shiikh u soo baxa 8 nin baa gaal kasta soo qaadi jirto xamaali jirtay markaynu inagu ingiriiska la dagaalamayno dadkaasi waa dadkaynu u dagaalanay oo 100 kun oo qof aynu u sheegnay inaan la gaalaysiinin oo sida Kenya magacyadoodu maanta uusan noqonin Peter iyo John iyo Edward iyo wax la mid ah iyo William waan ku istiraxa markaan arko iyagu tukanaya waayo haddaynaan ingiriiska la dagaalamin maanta sida Kenya iyo bay gaalo noqon lahaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaa ka hadlaya Xamuud Xasan Xaaji Cumar Caydbo waxaan doonayaa inaan la hadlo dadka aan ka dhashay dhulbaanta imaatadoodii lagu gumaadayo laascaanood lagu laynayana waa nasiib darro waxa halkaa ka dhacaya aqri 7 bayna haya dad hunaa oo ka yimid gabiile iyo arabsiyo iyo wajaale oo riif raafis oo loo kalaasa in dadkeena ay ku gumaadayaan laascaanood maanta waxa weeyaan waa cuquba inagu habsatay dadkaas hunnada ah markii awoogay suldaan sharmaarke oo suldaanka ahaa Saylac qarnigii 19aad dadkaasi waxay ahaayeen khadaamin u shaqeeya awoogay suldaan sharmaarke waa ninkii ugu horreeyay gaalkii ugu horreeyay ingiriiska Sir Richard Burton waa ninkii qoray First Africa ninkii halkaas ku marti qaaday weeyo ku qaabilay oo ilaa hergeeyo dadkii khadaamiinta ahaa ee hunnada ahaa ee gabiile iyo arabsiyo iyo ka yimid baa maanta maatadiinni ku laynaya laascaanood waa nasiib darro ina haysata dadkaasi markaynu daraawiishta ahayno aynu 20 sannood ingiriiska la dagaalamayno iyagu ingiriiska waxay ahaayeen xamaaliin gaal kasta oo ingiriisa oo soo xagaabaxa berbera oo shiikh u soo baxa 8 nin baa gaal kasta soo qaadi jirto xamaali jirtay markaynu inagu ingiriiska la dagaalamayno dadkaasi waa dadkaynu u dagaalanay oo 100 kun oo qof aynu u sheegnay inaan la gaalaysiinin oo sida Kenya magacyadoodu maanta uusan noqonin Peter iyo John iyo Edward iyo wax la mid ah iyo William waan ku istiraxa markaan arko iyagu tukanaya waayo haddaynaan ingiriiska la dagaalamin maanta sida Kenya iyo bay gaalo noqon lahaayeen dadkii sidaas ah ayaa maanta dadkeennii ku laynaya laascaanood dumarkeennii iyo carruurteennii habeenadan oo dhan ma seexanin dadkaas loo kalaaska in dadkeennii ay laynayaan anigu isaaqoodha wax ka sheegi maayo waayo kala badh baan isaaqa hooyaday waa isaaq habar yoonis reeraan ku faano adeeraday ciida galaa dhalay kulligii wada garxays baan dhalay aabbahay reer caynaashu reer guutalaa dhalay marka isaaqoodha wax ka sheegi maayo oo dee dhiigaygu baa inta badan isaaqya laakiin waxaan ina laynaya ee maatadini laynaya wax loo dul qaadan kara maaha dadka waynaynu ka saaraa dhulka waxaan sheegay dhulka waynan ka saaraa waynu iska saaraa laakiin waxaan farayaa waynu saaraynaayo wax hubayay la tegin hubka waa inaan kala hadhnaa